بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم caruure. waa habarartiin shaqna shire. maanta waxaynu baranaynaa arkaanul iimaan oo ah lixda wax ee qofka soo muslimna laga rabo inuu rumeeyo oo u barto. ta koowaad waxa weeyaan inuu qofku rumeeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala. ta labaad waxa weeyaan inuu qofku rumeeyo malaa'igta ilaahay. ta saddexaad waxa weeyaan inuu qofku rumeeyo kutubta oo ah kitaabada uu ilaahay ku soo dejiyey nebiyadiisa. ta afaraad waxa weeyaan inuu qofku rumeeyo rasuullada ilaahay uu soo diray. ta shanaad waxa weeyaan qofku inuu rumeeyo maalinta aakhiro oo ah qiyaamaha. ta lixaadna waxa weeyaan inuu qofku rumeeyo qadarka uu ilaahay u qoray oo ah waxa fiican iyo waxa xun wax kastoo ku dhaca inuu ilaahay u qadaray oo ay hore ugu qornayd. السلام عليكم.